أولا إلهي بأمهد له iskuukeen keenay madashan boqoran ee bilan ee ay ka muuqdaan wejiyada farxadda badan leh ee haweenweynaha gobolka Awdal iyo dhalinyarada inamadii ay soo buuxdhaafiyeen hoolka weyn ee Haldoor. waxaan u mahadnaqayaa dadkii ka soo shaqeeyey shaqada tan. waxaan kaloo u mahadnaqayaa madaxda gobolka ee ururka barwaaqo. waxaan kaloo u mahadnaqayaa dadka kale ee inaga caawiyey qurxinta maxaanku idhaahdaa madashan. intaa ka bacdi iyo madaxdii kale ka soo safartay Hargeysa barkaya xalay baanu joognay hoolka waan joognay xalayna waan ka hadalnay laakiin madax badan baa inoo timid caawa inay ila hadasho. madaxda hareerahayga taagani waa hoggaankii ururka barwaaqo oo dhammaystiran hadday tahay gudoomiye ku-xigeenkii koowaad iyo hoggaankii kale oo shala oo maxaanku dhahdaa halkan jooga. sidii hadalka intiisii badnayd waa la yidhi mucdi hadalka madaxdii iga horraysay baa tidhi laakiin anugu waxaan idinka dabageynayaa oon idin leehay hawshani maaha hawlo dhayala maaha hawl dhayala maaha. waxa weeye awoodda ugu weyn shacabkaa iska leh waa inay gartaan dadka goboladan iyo dadka reer Somaliland in ay Somaliland quruxdeedu ay ku jirto in gobolada Somaliland ay xisbiyadu ay ka soo baxaan oo xisbiga ama ururka laga doorto dhammaan gobolada Somaliland oo dhan. haddii ururku marka uu ololaynayo uu gobol u bato uu gobolkaa codka ka helo oo inta kale uu ka waayo sharaf maaha. inta badan waxaa la yidhaahdaa dadka reer Awdal laba gobol ama gobol iyo badh ayay joogaan gobolada kale ku dhacayaan baa la yidhaahdaa sidaasaa la iska dhaadhiciyey laakiin doorkan dadka reer Somaliland ee xariirta ayaa hawshaan diiday oo ah kuwa garbahayga taagan hareerahayga taagan inala hadlay eeyey annagaa wadna annagaa keenayna codkii gobolka Sanaag annagaa keenayna kii gobolka Togdheer annagaa keenayna kii Caynaba iyo Qurulugud annagaa keenayna kii Hargeysa annagaa keenayna kii Gabiley laakiin Awdal intiina ku soo darsada ragga hareerahayga taagan baa yidhi sidaa darteed waa laga baxay wixii hore ee laydii sheegi jiray. maanta markaa jaariskaa jira aynu ka faa'iidaysanno innaguna aan inta ugu badan aan bixinno. intaa ka bacd waxaan walaalayaal doonaynaa waddankan halkudhigga iyaga maxaanku idhaahdaa ururka barwaaqo waxa weeye dad mida iyo dad mida oo Somaliland ay u siman yihiin wey. ururkani waa urur dhalinyaro hoggaankiisu waa dhalinyaro wuxuu wax la rabaa waa dhalinyaro afkaarta waaminsan yahay waxa weeye inay dhalinyaradu wax noqoto inay beddesho saaxada siyaasadda waxa yaalla ee qabiilku u horreeyo inay baabiisaa la doonaya. dhalinyarada reer Somaliland waa kuwii isku muujiyey Hargeysa ee labadii xildhibaan ee Barkhad Batuun oo golaha baarlamaanka iyo Cabdikariim Axmed Mooge siiyey codka ugu badan ee soddonku ku dhow. dadkaasi ma ahayn dad jufa keliya ma ahayn laakiin waxay ahaayeen dad nacay qabiilka oo doonaya hoggaaminta dhalinyarada. maadaama taa la tijaabiyey waa tii labaatanna maxaanku idhaahdaa maanta hadday Hargeysa taa tijaabisay uu gobolkii Maroodi Jeex hadlay gobolada kalena saasaa laga rabaa. Burco sidaasaa laga doonayaa gobolka Sanaag sidaasaa laga doonayaa gobolka Awdal sidaasaa laga doonayaa gobolkii Saaxil sidaasaa laga doonayaa. markaasaa ay imanaysaa
dalmida iyo dadmidihii marka taa la sameeyo ayay imanaysaa waana u diyaar madaxda baana ka keenaysa intay dhegaysanaysaana farriin bay ku tahay inay hawshaa nala qaataan oo ay ka keenaan waana waayay ka keenayaan Somaliland aad baa jaamacadaha looga soo baxay wax badan baa la bartay waxa la fahmay hadda qabiilkii inuu qof shaqo geynin qabiilkii inuu qof karaamadiisa dhisin qabiilkii inuu qof gaajo ka reebin waxaasi daayirta reer Somaliland way barteen maadaama ay barteen maanta waxay ka qalin jebinaysaa daayirta Somaliland qabiil doolkii ay ka qalin jebinayaan waxayna u gudbayaan ay galayaan jaamacadda qarandool la yidhaahday galayaan oo hadda ay isqorayaan taa markaa ha ka hadhina inaad jaamacadda qarandool aad maanta iswada qortaan oo ah tii qabiilka dadkii doonayay aan kaga gudbayno oo ay ku hadhay dadka da'da ayay hadda hawshaasi ku hadhay ninba meesha bugtaa isagay balbashaan maxaan ku idhaahdaa weeye in badan baad fadhideen hadalka waan idiin gaabinayaa waxaan doonaynaa inaan isku tolno gobolka awdal iyo gobolka salal inaan walaalaynaan doonaynaa waxaan doonaynaa gobolka awdal iyo gobolka gabiley inaanu walaalo laxmiya ka dhignaan doonaynaa hadday marka hore ahaayeen inaan uga sii dhoweynaan doonaynaa hargeysa iyo awdal inaan walaalaynaan doonaynaa inaan awdal iyo togdheer ay walaalo noqdaan baanu doonaynaa in gobolkii sool ee la garan waayey ee maanta lagu raadinayo dahabka iyo dheemanka inaanu siyaasad ku keenno wakaa maanta areerkayga taagan maxamed khaliif waxa keenaya barwaaqaa gobolkaa ku keenaysa siyaasad barwaaqa ayaa keenaysa gobolkii dheemanka ahaa gobolkii noo dhisbaytirayay Somalilandta gobolkii markii tukarraq la joogay ictiraafkuu soo dhowaa maantana ictiraafkeennii oo kuu joogaa ma helaynana ictiraaf ilaa aan tukarraqna gaadhayno taasi markaa waxayna gaadhsiinaysaa xabadii inama geynaysa tukarraq xataa inama gaadhsiinayso tuulada oo ku xigta inama gaadhsiinayso laakiin siyaasad iyo qanacsanaan dad ayaa ina gaadhsiinaya taasay siyaasadeedka barwaaqo mabaadi'diisa siyaasaddu taa weeye